nabad dhamaan wacan oo wanaagsan waa 8 bisha February 2017 waxaa caawa si rasmi loo doortay madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Ligeelad waxaana xilka madaxweynenimo ku guuleystay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo wareegii labaad ee doorashada ku garaacay madaxweynihii haatan xilliga ka dhamaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud ku soo dhawaada taariikh kooban oo ku saabsan noloshiisa magaciisa buuxa waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu dhashay sanadkii 1962 waxa uu ku dhashay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Maxamed Farmaajo waxa uu dhalay 4 caruur, 2 gabdhood iyo 2 wiil. 1981 dugsiga sare ee farsamada gacanta ayuu ka qalin jabiyay Farmaajo. 1993 waxa uu ka qalin jabiyay State University of New York ee Buffalo isagoo ku takhasusay taariikhda Yurub iyo Mareykanka. Isla jaamacadaas ayuu ka qaatay darajada Master degree ama darajada labaad ee waxbarashada sare. 1981 wuxuu shaqo ka bilaabay wasaaradda arrimaha dibadda waaxda lacagta maamulka iyo arkeebiyada. 1985 ilaa 1989 xogayaha labaad ee safaaradda Soomaalida ee Washington ayuu ahaa. 1994 golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi Mareykanka ayuu qayb ka ahaa. sanadkii 2000 waxa uu noqday xiriiryaha degmada area ee dhacda galbeedka New York ee arrimaha xuquuqul insaanka iyo dadka laga tirada badan yahay. isla 2000 sanadka markuu ahaa golihii dhexe ee xisbiga jamhuuriga ee dalkaasi Mareykanka ayuu qayb ka ahaa. sanadka markuu ahaa 2002 xiriiryaha State of New York ee arrimaha xuquuqul insaanka iyo dadka laga tirada badan yahay ayuu soo noqday. sanadkii 2010 waxaa loo magacaabay ra'iisul wasaarihii CFG-da ee dowladii uu hogaaminayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Farmaajo markii uu magacaabay madaxweynihii dowladii kumeel gaarka ee ugu dambeysay dalka yeelatay Sheekh Shariif Sheekh Axmed baarlamaankii kumeel gaarka ah waxay ansixiyeen 31 Oktoobar 2010. ra'iisul wasaaraha waqtigaasi waxa uu magacaabay xukuumad yar oo kooban oo badankood ah Soomaali qurba joog ah. xukuumaddu soo magacaabay waxay ka koobnayd 18 wasiir. waa xukuumadii ugu yareed ee taariikhda dowlad kumeel gaar ah soo marta waqtigaasi. wasiiradu magacaabay waxa ugu muhiimsanaa oo shaqo weyn la soo qabtay Fahad Ali Xasan wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka arrimaha dibadda. Cabdi Xakiin Maxamuud Xaaji Fiqi wuxuu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka arrimaha gaashaandhigga. Xuseen Cabdi Xalane wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda iyo lacagta waxayna isla soo qabteen shaqo aad u weyn. ra'iisul wasaaraha xilligii uu ahaa Farmaajo wuxuu xilka iska casilay taariikhda markay ahayd 19 Juun 2011. iscasilaadiisu waxay imaatay markii madaxweynihii xilligaas Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyihii baarlamaanka xilligaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan ay ku saxiixdeen dalka Uganda inay awood qaybsadaan isla markaasna xilka laga qaado ra'iisul wasaarihii dowladii kumeel gaarka ee ugu dambeysay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. 2015 waxa uu baraka ahaa Area College of Buffalo. xilligaa wuxuu gudoomiye ka yahay waxa uu gudoomiye ka ahaa xisbiga Tayo oo uu loolanka ku galay 2012 doorashadii ka dhacday dalka. caawa taariikhdu tahay 8 bisha February 2017 si aqlabiyad leh waxay labada gole ee baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose u caleema saareen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inuu dalka hogaamiyo 4 sano ee soo socoto. magacaabidiisa waxaa soo dhaweeyay dowlado aad u badan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Turkiga iyo dowladda Itoobiya oo u muuqata in xiriir wanaagsan in la yeelan karin dowladda uu hogaami doono Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. nabadgelyo.